waxgarad ka soo jeeda deegaanka Celaf Weyn ayaa gacanta ku soo dhigay Cabdinuur Maxamuud oo dhawaan haweenay dil ugu geystay deegaanka Celaf Weyn kulankan oo ka dhacay xarunta gobolka Karkaar waxa goobjoog ahaa nabadoono waxgarad iyo maamulka gobolka Karkaar caaqilo ka soo jeeda deegaanka Celaf Weyn mudooyinkan ku sugan gobolka Karkaar ayaa gacan ku dhiglahan ku wareejiyay odayaasha dhaqanka si ay u gaarsiiyaan halkii dhibka uu ka soo geystay si loo kala badbaadiyo beelaha dhibkaasi kala gaaray Chief Caaqil Maxamuud Nuux Maxamed iyo caaqilo kale ayaa dhankooda ugu horeyntii ka hadlay goobta waxaanu halkan isugu nimi Cabdinuur Maxamuud Maxamed Faarax oo gacan ku dhiglihii gabadha ku dilay degmada Celaf Weyn maanta waxaanu isugu nimi wiilka inaynu ku wareejino boqorka iyo cuqaasha beesha Ismaan Maxamuud ee degan magaaladan Qardho wixii inta ka dambeeya iyaga ayaa ka mas'uul noqon doona haday iyagu u yeedhayaan ciddii dhibta uu ka galay haday u geynayaan inankaasi waa qaatil dhiig buu galay ilaahay wuxuu ka dejiyay ka xukumay waynu ognahay isu sheegimayn laakiin waxa noo codsiyaan ku kabaya ciddii xaqa ku yeelatay ee xaqa lahayd ilaahay uu waajibiyay waliyo damka ahayd inaad fadlan noo u yeedhaan oo ay timaado waayo dadka waad ogtihiin oo dhaqan baa arrintan oo kale lagu xalilaa magaal la bixiyaa mas'uuliyiin gaar ay leeyihiin reerkan waliba qoyska inankana hadeer dhagarta ka galay tankii noo xigtay gabadh bay ahayd bal fadliga ilaahay gabadh bay ahayd si fiican baan uga saddex been bay xidhnay gacantaan ku soo qabanay waana loo keenay saddex been bay xidhnay waanu ka magtii nalasiye baanu qaadanay tanina waa tii xeerkaasaanu leenahay marka waxaan xoogaynayaa keliya sidaas aydina aanu idinku wareejin qaar kamida waxgaradka iyo nabadoonada gobolka Karkaar ayaa dhankooda si weyn ugu mahadceliyay caaqilada iyo saraakiil uu kamid yahay Corneel Caare oo juhdi ku bixiyay soo qabashada gacan ku dhiglahan wiilka markay gacanta ku dhigeen ayaan sii deynaa anaga ay gacanta noo soo geliyeen annaguna aanu geynaa meeshii labada reer ka dhaxaysay oo ay wax ku kala wiilku aanu ku wareejino si ay wax ku kala qaadan lahaayeen xeerka oo ahayd sidaasaanu waxaanu ku qaadanay wiilka inaanu anagu sidaa haddii ay bahayd ma gacanta ku dhigna halkaasna geynaa annagoo ula jeedna dadku waa walaal meelo badan oo dadku dawladda dirtay dadku ma dirin ninka gacan ku dhiglaha oo gacan ku dhiglaha ay nagu soo wareejiyaan waana idin kala wareegno marka hore waana idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan oo aad yeesheen nin gacan ku dhigla oo jamhad u galay nimanka soo qabtay oo xabsiga keenay dabadeedna cuqaasha iyo dhaqanka Ismaan Maxamuud ku wareejiyay aad baan uga mahad celinaa waa fal waxaanu dareemaynaa halka ka dareemaynaa inay danaynayaan dhibaatada ka jidha labada beelood inay sii socoto inay ka soo horjeedaan oo ay danaynayaan heshiiska iyo nabadda iyo walaalnimada haddaan nahay beesha degmada gobolka Karkaar degmada Qardho odayaasha Ismaan Maxamuud iyo boqorka inaan ninka anigu la wareegno weegan la wareegno gacanteeda ku wareejino ku kaxayno labadii beelood rugtoodii deegaankoodii waxgaradkoodii ismadoodii rugtooy fadhiya inaan dhexgeeno taagno gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre Caato ayaa dhankiisa amaanay sida wanaagsan ee gacan ku dhiglahan loo soo wareejiyay iyo soo qabashada iyo raadinta nabadgeliyada dhexta labada beelood oo wada dega oo walaalaha oo reer Sanaag siday u badbaadin lahaayeen inaan dhiig dambe ka dhicin aad iyo aad baan uga mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad ugu wareejiseen gacan ku dhiglaha odayaasha iyo boqorka dabadeedna ay ugu gudbin lahaayeen meeshii loogu talagalay nabadu ka dhalan lahayd aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa annana idinku saagootiyeynaa sidaasaana inoo ballana haddii rabbiidan ka dhigo darafka kalena waxaa laga doonayaa wixii dhaqan iyo wixii siyaasadayna in la isdhexgelin dhaqanku waa gooni bulshadu waxa weeye waa lama taabtaan dadka birimageyda waxa weeye cid kasta mas'uuliyadeeda inay ka gudataa loo baahan yahay
yaxya nuur muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada Qardho daawadayaal warkii oo intaa ku dhan haddii aan